maxamuud axmed cali waxa uu ku dhashay gobolka Togdheer degmada Burco hilaad ahaan kala guurkii labadii qarni ee tagay dhamaadkii qarnigii 19aad iyo bilowgii qarnigii 20aad. waxa uu maxamuud waxbarashadiisa aasaasiga ku qaatay magaalada Berbera dugsi ku yaalay oo wax lagu bari jiray arday isugu jirtay Carab iyo Hindi. waxa uu ka mid ahaa ardayda farakutiriska ah ee Soomaaliyeed ee dugsigaas loo ogolaaday. sanadkii 1919 waxa waxbarasho loogu diray wadanka Suudaan waxaanu tacliinta ka bilaabay magaalada Khartoum kulliyad lagu baran jiray macalinimada oo loo yaqaanay Bakhta al-Ruda. dhamaadkii 1920 ayaa maxamuud axmed cali ka soo laabtay waxbarashadaas. markii uu maxamuud axmed cali waxbarashada Suudaan ka soo laabtay waxa uu noqday shaqaale dawladeed. waxa uu maxamuud ku baraarugsanaa ahmiyadda ay waxbarashadu u leedahay waxaanu ka dharagsanaa oo fahansanaa khilaafka dhex yaala Soomaalida iyo maamulayaashii gumeysiga. sidaas darteed waxa uu ka fekeray in ubadka Soomaalidu ay helaan waxbarasho ka duwan taas fashilantay ee gaaladu hormuudka u ahayd. waxa uu isku taxalluujiyay in gumeysigu taageero u fidiyo rugihii waxbarashada ee Soomaalida oo ahaa malcaamadihii Quraanka si la isugu soo taago oo ubadkana loogu ogolaado inay ka qayb qaataan barashada aqoonta kale ee maadiga ah. maxamuud axmed cali oo garwadeenka ka yahay waxa uu maxamuud axmed cali la noolaa dadkiisa waxaanu hiil u ahaa una taagnaa sii horumarintooda. waxa uu daba joogay dadaalkii soo taxnaa ee Sheekh Yuusuf Al-Kawnayn ee alif wax male bahoostaale ama alif la kordhabay alif loos dhabay iyo alif la goday. waxaanu ku qanacsanaa in hore halkaas looga sii heetiyo oo tallaabo kale loo sii ruqaansado. maxamuud axmed cali waxa uu geed dheer iyo mid gaabanba u koray inuu aqoonta ku ababiyo ubadka Soomaaliyeed iyo sidii loo heli lahaa goobihii waxbarashada lagu siin lahaa ee la isugu keeni lahaa marka ay malcaamadaha ka soo aflaxaan. allah u naxariistay maxamuud axmed cali marar badan way la dirireen dadyooga Soomaaliyeed iyagoo ku andacooday inuu carruurta ka gaalaysiinayo. maxamuud waxa uu geli jiray safaro dhaadheer si uu u soo ururiyo carruur waxbarashada ka qayb qaata. waxa uu kaxaysan jiray rakoob awr la fuulo ama faras waxaanu dhex mari jiray dhul daaqsimeedka beelaha xoolo dhaqatada iyo reer guuraaga Soomaalidu ay degaan. waxa uu weydiisan jiray 20, 10 ama 5 wiil inay ku daraan si uu u geeyo goobaha waxbarashada. inta badan waa lagu diidi jiray arrintaas, meelaha qaarna wuxuu kala kulmi jiray or iyo cambaarayn. dadku waxa ay uga biyo diideen waxbarashada casriga ah waxa ay ka dareen qabeen dugsiyadii bilowga ahaa ee gumeystuhu horkuutinayay. hase yeeshee maxamuud axmed cali waxa uu aqoonsanaa una muuqatay baahida loo qabay in la abuuro waxbarasho maadi ah oo la jaan qaadi karta diinta iyo dhaqanka ummadda oo aan ahayn taas laga wiigayay ee baadariisnid. maxamuud axmed cali allah ha u naxariistee waxa uu ka mid yahay tiirarka waaweyn ee sooyaalka ummadda waxaanu magaciisu buuxinayaa oo lagu soo baadisooci karaa tilmaansi ahaan nuxurka erayadii allah u naxariistee Cabdilaahi Qarshe aqoon la'aani waa iftiin la'aan. waxa uu maxamuud ahaa aasaasihii iyo hirgeliyihii waxbarashada casriga ah waxaanu ahaa macallin suurtageliyey inay tacliinta qaataan oo wax badan bartaan aflaxaan kooxahan in ka badan oo ka mid ah qalinleydii ugu horreysay ee Soomaalida. allah u naxariistay maxamuud axmed cali taariikhdiisa kuma soo koobi karo hal muuqaal iyo 2 toon ah ee waxaynu ka diyaarin doonaa silsilad muuqaal ah oo ku saabsan hooggii iyo hujuunkii uu kala kulmay maxamuud axmed cali ummadii Soomaaliyeed ee jahliga la tiicisay. muuqaalku intaas ayuu ku yahay daawade ee like saar haddii aad nagu cusub tahay wax badan ayaa ku dhaafay.